waqtiga duhurkii galmadu indhaha miyay hoos u dhigtaa wax miyay yeeshaa galmadu qudheeda looma hayo in muraayada digriga indhaha loo qoro ma soo celin kartaa digriga indhaha waxaase kaga maarmo muraayada ma jirta waa laba su'aalood isbarkan in muraayada laga maarmi karo iyo haddii muraayada iyaha gadaasha ku furnaa xididada dila maxaa ka dawaweyn indhihii oon xanuunayn hadday ilmaynayaan haddana arrintaa haddii carruurtii la yidhi cudur ma aha qof weyn oo haddana ilma ka daadanaysa indhihiina xanuun aan dareemaynin arrinkaa maxaa lagu macnay hor fadhiya wuxuu yidhi doctor badhidu indhaha miyay wax u tartaa waa su-aasha koowaad su-aasha labaad waqtiga duhurkii galmadu indhaha miyay hoos u dhigtaa wax miyay yeeshaa aragtida بسم الله الرحمن الرحيم أرتو واحد جرا وحياة بدنا عن scientifically لوجو آمنين أما عن الإمبارس كفرنا لوجو سمين علمك إياه هذا اللي كانوا يكلدوينهن لكن الإمبارس تبارك الله سماه وحي فقط الأركو ولا أنت سقف واحد لوجو تجابي for example بقول قفا بريد جوكتو استعمالي بقول لما يستعمالين إنه هذي والله باري مركون والله سيب باري مركون والله باري فرق أنت على يود حي مركون اللي ينادوا بالله أوران كرا بريد وحويش عم يعيش لكن سيد عادي كه وحويان بريدو دوا دفن ويان دفن عادي ويان مركا وحي سيجار إنها ويليش بل دفن كوفي عين إنها آد بقول نكسين فيتامين إيجا إنها فيتامين أقوم من سنة يكون شغال فيتامين إيجا فيتامين A gaas waxa laga helaa dufanka hilibka beerka iyo kaaroodka yaa ugu badan marka dufanku wax weyn ma yeelo indhaha wuu wanaagsan yahay bal waqtiga abaaraha marka la joogo waxa weey dadka indhaha nabar badan baa kaga sameysma oo reer miyigo kale waqtiga abaarta aad bay iyagoo indhaha nabar badan kaga sameysmeen oo qaar way u indha beelaanba ayaa yimaada marka dufanku indhaha aad buu anfaca wuu wanaagsan yahay وحما يلا إن كستو دد بدن أي كقاليانو نخاتير تقار أرماس بدليان برجع هراء وحوي نخاتير تحلون جري دفنك يهلبك إياه خطرت هذا بلوجو شيء لكن مرة دم بحال أوجادي إن خطرت بدن الشيء أنا وحوي كجرين يلا كوليسترول شن بدن حتى لقى شيء كاني إن وحوي كجرين دد بدن بهلبك كجا عجنا دويري كوليسترول ما قباه هلب مدواني لكن هلب جيلو كلا كوليسترول معها لكن وحقيقة هلب كونه يسيد الطعام وأنت تقول نكسن وقف فائدة بدن ونفقد بدن جركنا مركا عندها برضه هرتو حمي شو تنكنا قلمضو قدرة الله ما هي واحد دليله إن عندها حيليش ما أعرف تذكر بس كده لك واحد دليل الله ما هي جزاه الله خيرا دقيستها نوحي نويديي biyaha gadaasha ku furnaa xididada dila maxaa ka dawaa ama maxaa sababa biyaha xagga dambe gale khatarta ah horta waa wax iska yimaada waxa la yiraahdaa laba nooc way u kala baxaan nooc waxa weeyaan waa open angle glaucoma la yiraahdo sababta keenta lama yaqaan laakiin waxa jira waxa la yiraahdaa familiarity familiga wax laga yaabaa in dad kamid ah dhowr qof lagu arko aabihii baa lagu arkayaa carruurtii laba kamid ah lagu arkayaa waxa weeyaan ilmuhu awow qofkii uu maartay awowgaha waa lagu soo arkayaa marka familiarity jirta ama wax laga yaabaa aabo hadduu indha beelo carruurtiisa kala badh ama in ka badan inaynu biyihii laga helo ama hooyada indha beelaysa carruurtiina kala badh laga hela laga yaabaa marka waa wax familiarity ah marka qofka aabihii ama abtigii ama adeerkii ama eedadii ay biyaha lagu sheegay isagu waa riski factor buu leeyahay waa inuu la xiriiraa dhaqaatiirta sanadkii mar jeekan sameeya waa dadka ay ku badan tahay ama laakiin sababta rasmiga ee keentay ilaa hadda lama yaqaan way jiraan nooc baa jira secondary glaucoma la yiraahdo oo sabab keento tusaalaan nabar xoog la ku dhaco kale nabarka xoog leh meelihii biyuhu mareen buu xidhayaa ama dhiig ku furaya dhiigiiba meelaha xidhaya glaucoma imanaya oo biyo kacaya aad u badanaya taas secondary glaucoma la yiraahdaa
iyadu wayna sida tan isma qarisee xanuun badan bay keentaa markiiba degdeg baa wax looga qabtaa inta badan laakiin kan aan isqarinaya dhuumanaya inta badan waxa la yiraahdaa tuuga aragga xada tuuga ma soo jeedo ku xadaya adoo ogeyn buu ku xadaya marka tuuga aragga xada ka lama yaqaan sababta rasmiga ah ee keenta lama garanayo sidee loo daweeyaa waxa loo daweeyaa pressure-kaas in hoos loo dhigo for example waxaan idhi cabir buu leeyahay lagu xisaabtamo cabirkaas waxa weeyaan 4 hadduu kor dhaafo qofka biyaha ku furmay hadduu ka hooseeyo biyuus waa caadi hadday biyo ku furmaan waa cabirkaa la dejiyaa 8 buu tagay dawooyin baa la siinaya xabadda waa la siinaya dhibic baa la siinaya hadday ku fulaato soo dejiso taas wadaya haddii xabaddaas taxtar weydo 2 laga dhigayaa haddii wax tar weydo 3 baa laga dhigayaa haddii wax tar weydo qalliin baa loo sameeyaa biyaha waa laga xidhiyaa ama dadka miyiga ka yimaada dawooyinkan waa dawo qaaliya dawooyinkan biyaha loo isticmaalaa way ka qaalisan yihiin dawooyin kale $12 $15 ay noqon karaan marka maadaama qofkii aan awoodi karin inuu joogto u qaato qofka waa laga xidhaaba waxa la 2 bilood dawada soo qaado marka biyuhu ka yaraadaan soo noqo waa laga xidhayaa marka waa laga xidhaa halkaas isku daayeen maanta waan garanay su'aal muhiim ah wuxuu ku leeyahay dadka waaweyn indhihii oon xanuunayn hadday ilmaynayaan haddana arrintaa haddii carruurtii la yidhi cudur ma aha qof weyn oo haddana ilma ka daadanaysa indhihiina xanuun aan dareemaynin arrinkaa maxaa lagu macnayn karaa jazaak allah khayr qofka markuu weynaado 2 arrimood baa isugu darsamaa waxay ilmadii la soo saarayay way badanaysaa daloladii ilmadu galaysayna way soo dhaadheeraanayaan islaamaha inta badan 2 naas baa halka ku yaala yidhaaheen 2 naas waa tuubooyinka ilmadu gasho marka hore jirkay la sameyn yihiin marka dambe kor bay soo dheeraadaan marka 2 dalool marka ilmadu galayso afkay saa isu saaraan markaas ilmadii nuugan inta u dhaxaysay nuugayaan inta markastoo ilbirqsato inta yar u dhaxaysa 2 dalool ay nuugayaan marka qofku markuu weynaado dhowr rood baa iman kara bahladii waa sir dhaafi kara maartay 2 dalool ayaa sir dhaafi kara inta soo dheeraadaan waxa dhici karta oo kale markay soo dheeraadeen biyo way ka hooseeyaano maartay inay biyo maartay isaga ka soo dheeraanay ka soo kormaraya marka adigu cilada waxa weeyaan dalooladiina sidii la doonayay drainage kuma sameynayaan oo biyo uma qaadayaan biyo la soo saaray way badanayaan laakiin wax dhibaato ah ma laha qofka waxa loo qoraa dawooyinkan ilmada yareeya maartay ee dufankana indhaha ku badiya kuwaas loo qoraa kuwaas oo qaata kuwaas ka kala daada oo joogta ah laba dhageyste oo 2 su'aalood oo isu dhow ina weydiiyay waxay leeyihiin muraayada digriga indhaha loo qoro ma soo celin kartaa digriga indhaha waxaase kaga maarmo muraayada ma jirta oo 2 su'aalood isbarkan in muraayada laga maarmi karo iyo haddii muraayada la isticmaalo inay soo celin karto aragii horta arag waa 2 nooc aragga fog iyo aragga dhow aragga fog wuxuu ka lumaa qof kasta uu ka lumi karaa laakiin dhalinyarada ayaa u badan intuu ka lumo qofku intuu dhalinyaro yahay waxa laga araggiisa fogaa inuu 30% noqdo 40 noqdo 50 noqdo ujeedadu sababta keentayna waxa weeyaan indhihiisa waaweyn inta badan waxa weeyaan qofka muraayad fogaana qaadanaya mar waxa noqotaa plus mar minus markay minuska tahay waxa weey qofka indhihiisa waaweyn oo iftiinkii la rabay inuu shabakada gaaro ma gaarayo ishiisa ka weyn meel wuxuu ku dhamaanayaa muraayadana marka maxay qabanaysaa iftiinka bay tuuraysaa oo shabakada gaarsiinaysaa qofkii argiis 30% ka ahaa ayaa 100% tagaya marka qaarkood waxaad arkaysaa qof argiis 5% kaliya yahay oo wajiga qofka arkaynin marka soo hor fadhiyo laakiin markuu xidho iftiinkii wuxuu gaadhay halkii loogu talagalay 100% buu tagaya marka qofkaas waxa lagu taliyaa muraayada inuu mar walba xidhnaado oo dhigin waayo muraayadaas argiisa haysaba hadduu dhigo wuu khasbiyaa indhihi khasabka oo khasbiyo indha xanuun madax xanuun mirgi xanuun baa imanaya marka waxa muhiim ah qofka haddii muraayada loo qoro oo daadiisuna yar tahay waliba hadduu carruur yahay aad buu ugu khasban yahay laana waxa weeyaan ilmuhu markuu yar yahay 5 jir 6 jir yahay ayaa maskaxdiisu qaybta aragga oo kortaa haddii marka isagoo u baahnaa muraayad in loo qoro aan muraayada qaadanin qaybta aragga ma korayso qofkuna indhihiisu wuxuu noqonayaa lazy eye
waa la baaraya indhihi caafimaadkooda boqolkiiba boqol laakiin arag ma laha maxaa keenaya ishiiba lazy ay noqotay ama niba lazy ay noqdo markay kor lahaayeen yaana korin marka waxa muhiim ah carruurtu intay yaryar yihiin haddii muraayad loo qoro muraayadda waa inay qaataan haddii ilmahaas qaadan waayo muraayadda hadhow markuu weynaado muraayadda waxuma tarayso waayo santarkii aragga keeni lahaa ayaan korinba oo halkii la rabay aan gaarin meeshii loogu talagalay qodobka labaad waxa weeyaan qofku wuxuu hadduu 40 ka yahay muraayad akhri taas waxa weeyaan aragga fog ee minuska ah waxa dad arag indhooda yaryar yihiin adeerin dadkaas waxa loo qoraa muraayad blasa oo aragga fog ah aragga dhowna markuu 40 gaaro qofku wuxuu u baahanayaa muraayad akhriska u baahanayaa inta badan boqolkiiba 90 dadku uma baahdaan aragga dhow ilaa 40 ka gaaraan 40 markuu gaarana qofka haddii araggiisa fog uu fiicnaa muraayad waa compulsory inuu qaato aad buu ugu baahanayaa hadduu iska daayo uu yeeli karaa laakiin khasbiya khasabkaasa keenaya marka in xanuun badan keenaya daal badan keenaya qofka waxa laga yaabaa markuu laba beeg akhriyo inuu ku daalo markiiba laakiin hadduu muraayadiisa xidhan lahaa muraayadaas inay anfac lahayd oo uu maartay muddo sii haysan lahaa haddii safar loo geli jiray barashada quraanka kariimka haddaba quraanka waxaad baranaysaa adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo dugsiga barashada quraanka kariimka la dacwa quraan online duruusta ku haya waxaa ka mid ah akhrinta iyo qoraalka sixidda dhawaqa xifdinta quraanka kariimka haddaba isqoristu waa ay socotaa haddii aad doonayso kala xiriir taleefanada shaashada xarunta xayeysiimaha ee all waxay ku xayeysiinaysaa xayeysiimaha kale ah quraanka online-ka iskuulada iyo jaamacadaha isbitaalada iyo ganacsiyada haddaba haddii aad doonayso kala xiriir taleefankan